عرقد dhacdo tagi umayo doorasho loo gudbimayo laakiin waxaan jecelahay in si nadiif ah oo heshiiskaas hadda Suudiga loo daayo oo aan la farafarayn oo la furfurin si ay doorasho u dhacdo oo aan u helno madaxweyne bedela asaga oo ka fiican waxa la soo afmeeray khilaafkii u dhaxeeyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya sida madaxweynaha muddaxileedka soo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble khilaafkaasi oo ku fooray arrimo ku saabsan amniga dawladda federaalka Soomaaliya hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kiiskii Igraan Tahaliil khilaafkaasi xalintiisa ayaa waxa garwadeen ka ahaa madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagareen kaasi oo ugu dambeyn ku guuleystay in uu heshiisiyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena ay labadooduba si wada jir ay ugu mahadceliyaan haddaba halkani oo daawadayaal magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug shacabka ku dhaqan ayaanu waxaanu ka weydiinay aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan in la xalliyo khilaafka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena waxay baaq u direen madaxda ayagoo ugu baaqay in ay markaas dalka doorasho ay ku jiheeyaan waa kuwan iyagoo la hadlay Idil TV magacaaga ku bilow magacaygu Ahmed Maxamed Ali Ahmed Furre أحمد فرّ وكسر دويني قبل سداو أركتها إن لحليو خلاف كي مدحوينها مدحريت كسر دماغ محمد عبد الله فرماتشي رئيس الوزراء الروبلي إن خلاف كاسو دماغ ومضى دم بيدنا واحد وأنا سود وين واربنا لكن وحن كبقى مرة نقص نقط ننكفر بعد وكسر نقط جيز عرقلات لبعض نقص نقط أما أفراد واي maxaa yani u sabab aan aqoon karaa mar hadii ay labadoodu ay heshiiyeen maxay tahay cabsida ku aadan in mar kale uu Farmaajo uu soo celiyo khilaaf ee aad ka qabtaan dadka shacabka Soomaaliyeed wallahi shacabka Soomaaliyeed anigu ayaan u hadlayaa gaar ahaan xooga mucaaradka oo nacay Farmaajo anigu aan kamid ahay waxaan ka baqayaa waxaan ninkaan carqaladu ka faa'iideystaa wuxuu jecel yahay inuu xukunka ku siisaas ku sii joogo oo hadii carqaladu dhacdo tagi umayo doorasho loo gudbimayo laakiin waxaan jecelahay in si nadiif ah oo heshiiskaas hadda Suudiga loo daayo oo aan la farafarayn oo la furfurin si ay doorasho u dhacdo oo aan u helno madaxweyne bedela asaga oo ka fiican waayahay hadii khilaafka labadooda la dhameystiray oo ay heshiiyeen ma islaada dalku doorasho markan uu aadaya ها وان كو هان وينه aad baan weynaa boqolkiiba boqol waan ku haan weynaa heshiiskaas hadii uu sida uu yahay loo raaco oo aan la leexleexin doorashada way dhici doontaa insha Allah mid fiican baan dhici doontaa rajaynayna waayahay furo maxay tahay baaqa ugu dambeeya ee aad u dirayso madaxda dawladda federaalka Soomaaliya baaqa u diray madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxa weeye annaga weyna daashatay dood is haysata maalin kasta laga soo bilaabo 90 iyo kowgii wixii ka dambeeyay isqabqabsi baa indhahaas noo yeelay shacabka Soomaaliyeed u tura oo u tura danihiina ee danta Soomaaliyeed eega saasan leeyahay magacaaga ku bilow walaalo waa ku dhawaay walaal Idil TV magacaygu ayaan la xasan xaraare kamid ah dadweynaha magaalada Gaalkacyo waa ku dhawaay Idil TV aad baad ma santahay sidee u aragtaa khilaafka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Rooble in guul lagu soo dhameeyay oo khilaafkoodii la xaliyay waayahay khilaafkii u dhaxeeyay madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble runtii waxa uu ahaa khilaaf niyad jab ku abuuray dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed filayay inay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah waqtigeedana ku dhacda khilaafkaas waxa uu dib u dhigay waqtigii doorashada hadii hadda la xaliyay oo heshiis laga gaaray waxaan oran karaa waa guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa in la dhaqaajiyo tareenka doorashada sanduuqa codka lagu kala baxo qolo walbana waxa isku haysto laga dareemo insha Allah maalinta doorashada hadii la hayno waayahay inkastoo maamulada qaarkood sida galmudug oo kale ay ku dhiman tahay kuraasta aqalka sare bal ma laga yaabaa hadii khilaafaadkii madaxweynaha u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha la xaliyay in dalku doorasho uu aado oo ay bilaabato doorashadii xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee bedeli lahaa baarlamaankan hadda muddaxileedkoodu dhamaaday sida ogsoonahay xubnaha aqalka sare hadda waxa diyaar ah 52 xubnood ba hadda diyaar ah laba kursi baa dhiman oo galmudug ku dhiman iyagana waxa la rajeenayaa inay waqtiga u dhaqsiyaha badan soo dhameystirmi doonaan sidoo kale doorashada golaha shacabka ama aqalka hoosana waxaanu ku hanweynahay inay bilaaban doonaan asbuuca soo socda wixii ka dambeeyaba in la bilaabi doono ayaan ku rajoonahay maadaama hadda aysan jirin wax mugdi ah u dhaxeeya madaxda sare isla markaana ay diyaar yihiin dhammaan facilitieski loo baahnaa waxaan rajaynaynaa wax waqtiga dambe haray inaysan jirin doorashadan ay ku bilaabato fi magacaaga ku bilow walaalo ما شاء الله أديات بن أقول وهاي بحث صحافتنا أديات بن السلام يا مقعي وشريف حسين مس وهاجاج إن شريف وسيدا وأركتا إن لحلية خلاف كيقول حيي مدحوينا فرماتشي رئيس الوزراء الروبلي
aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay in khilaafka asaga ah la xalliyo aad baan u soo dhaweynaynaa madaxdana waxaan ka codsanaynaa inay khilaafka iska daayaan siiba Farmaajo inuu hadda ra'iisul wasaare uu dhaho waa baacinaya wax daan naguma jiro wadankana burbur iyo abaara iyo hawsh noocaas ah hadduu ka soo kabsaday hadduu fiican yahay ma fiicna runtii in magaranaysa wadanku uu burbur sii galo inay madaxdu heshiiso aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaa arrinta ayada haddii uu soo dhamaaday khilaafka madaxda sare ma isleediina ama ma ka rajo qabtaan in dalku uu mar kale u doorasho u aado oo dhankaas iyo xildhibaanada golaha shacabka doorashadoodii loo dareero haddii runtii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha khilaafkoodii soo dhamaaday runtii waa la gelayaa xasilooni baa la gelayaa oo runtii khilaafku u dhamaanaya wadankuna doorasho iyo horumar baa la gelayaa macaan magacaygu waa Yuusuf Cabdi Yuusuf Yuusuf waan kugu soo dhaweynayaa Idil TV sidee u aragtaa in la xalliyo khilaafkii madaxweynaha muddaxileedka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta in ay ka heshiyaan khilaafaadka ka dhaxeeyay wallahi waa soo dhaweynayaa waxaan leeyahay waa guuli gubnimo in khilaafaadkii iyo dhibaatadii iyo dagaalkii darag waana dagaala waan heshiiyaa ragna isbuuc ma dagaalsanaan karo marba wargo ku heshiiya waxaan leeyahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha heshiiska gaadheen iyo sidaad isku fahanteen waan soo bogaadinayaa waan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay anoo waa ku faraxsanahay oo inaan dalka dawlad iyo nabad iyo nagaasho fiican nagu dhawaataan doonaynay waan soo dhaweynayaa fikirkaas madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay guuli goono noolaada wayahay ma kula tahay haddii khilaafaadkoodii uu dhamaaday in dalku uu doorasho u aadi karo mar haddii la heshiiyo wax walba lagu heshiiyo wax walba heshiis weeye marka ama doorasho la aadayaa ama si lagu heshiiyo markaas wax loo xalinayaa madaxweynahana waxaa leenahay Farmaajo ha noolaada magacayga waxaa la dhahaa Falastiin Maxamed Shaare waxaan ku dhashay gobolka Gaalkacyo waxaan u arkaa Soomaaliya oo israacday laba qof oo isku dhacday wax isku dhacday waa wax jira awgood oo gabar la dhibaateeyay haddana hadday dib u heshiiyeen badeedina dib ugu soo laabatay waxaan u aragnaa in hore loo socdo in gadaal loo laabto maaha qofkii kale oo soo istaagay doorashada u furantaas maxay tahay marka baaqa u jeedinaysa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya maadaama ay heshiiyeen gaar ahaan waxaan u jeedinayaa madaxweynaha asoo aan ka tashan qofka isla markiiba casilaya waa inuu dadka la tashto xildhibaanada iyo indhagaradka hawyisu ku degdegin qof dambe inuu rido loomana baahna hor socod baan rabnaa gadaal socod ma rabno magacaygu waa Cabdullaahi Cabskaafi Cabdullaahi soo aragtaa in la xalliyo khilaafaadkii u dhaxeeyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya wabaay waan soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo heshiiyey arrintaasna dad badan baa ka falqaatay ugu horeeyaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo kan Galmudug Qoorqoor iyo Axmed Baalki gudoomiyaha baarlamaanka aad ayaan markaas ugu horeeyaan hadda laakiin wax soo gabagabeeyay aad loogu manaqayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed kuwaasi waxay ahaayeen qaar kamid ah shacab ku dhaqan magaalada Gaalkacyo oo aragtidooda ka dhibanayay in la soo afmeero khilaafka u dhaxeeyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo sidoo kalena rajo ka muujiyay dalku inuu doorasho aado sidoo kalena la soo xulo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee bedel laha kuwa iminka jooga Nimca Cabdiraxmaan Maxamed Nimca Fiora wararka warbaahinta Idil TV magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug